maxkamadda gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa ayaa 6 bilood oo xabsi ah ku xukuntay 20 dhalinyaro darbi jiif ah kuwaasi oo 6 maalmood ka hor laga soo qabtay afaafka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyaga oo waqtigaasi ku xunsanaa afaafka hore ee wasaaradda asahaatee maxkamaddu waxay sheegtay in dhalinyaradani lagu soo eedeeyay inay isticmaalayeen maandooriyaha alkoholka ama xabagta loo yaqaano dacwadda dhalinyaradan 20 ah oo socotay muddo 2 maalmood ah ayaa waxa la xukumay isla maalintii labaad ee dhageysiga dacwadooda iyadoo aanay jirin wax qareen ah oo difaaciyay Yahya Xuseen Yuusuf oo ah garsoorihii gacanta ku hayay kiiska dhalinyaradan darbajiifka ah ayaa goobjoog uga waramay qaabka uu dhacay xukunka dhalinyaradani maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanayaasha ee loo soo gudbiyay maragadeedii iyo markii loo soo gudbiyay exhibit-kii lagu hayay xamagta ay weyteen maxkamadda gobolka Maroodijeex waxay mid ugu akhriday eedii loo haystay ee ahayd mukhadaraadka iyo arbishaad xafiis waxaanay dhammaan eedeysanayaashaas ku cadaaday in maxkamadda horteeda qiraal ay ka horbixiyeen inay xamagtaas ay cabayeen kadib maxkamaddu waxay gashay inay baadho da'dooda waxaana maxkamaddu 23kii eedeysane ay sii deysay 3 eedeysane oo da'doodu ay yareyd waxaana maxkamaddu ku xukuntay ay ku heshay maxkamaddu 20ka kale ee eedeysane mukhadaraadka qodobka 21aad ayaa lagu helay kadibna waxa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ayaa lagu xukumay marka yaa ka soo dacwooday iyaga waxa ka soo dacwooday horta qaranka dhibana ka ahaa kale waxa ma garanaysaa dhibana ka xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha laakiin waxa dhibana ka ahaa qaranka dhibana ka hase ahaatee dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan walaac ka muujiyay iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay arrin sharciga ka fog garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ka tirsan xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa sheegay in waqtiga dhalinyaradan la xidhay ay ahaayeen kuwo cabasho la hortagay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland carruurtaasi way caawdeen dawladooda iyaguna waa muwaadiniin marka qof dawladdiisii aqoonsan oo kuuligan ku aqoonsanay dawladnimadeedii adigan ku cabanaya ay cabashada wax iga qabo oo xilliga dhaxmaal lagu jiraa busteelsi waxay cabanayeen waxa ahayn busteeyal bay ahayd busteeyal ay huudaan ayuu cabanayeen marka busteeyashii huunay ay cabanayeen bay wasaaraddii ay tahay waxa rabshad bay sameeyeen hal xidho marka ismaan lahayn runtii arrintan oo kale Soomaaliland way ka dhacdaa laakiin waxa weeye ceeb weyn weey runtii marka dawladdu waxaan ku codsanaa carruurta xiroodu degdeg lagu caliyo laba sababoodba kow carruurtaas iyagoo u baahan maanta daryeel uma baahna xukumid umana baahna xabsi ku hayn waxay u baahan in la daryeelo hooy loo sameeyo waxbarasho carruurta la toosiyo diversion loo sameeyo oo jiho iyaga lagu dhaqan caliyo noloshooda lagu dhiso waa carruurtii qaranku lahaa marka carruurta qarankana dawladdu waajib ka saaran tahay inay koriso ay wax barto maadaama yihiin carruurtii qaranka soo koraysay uma baahna dibindaabi iyo hagadaamo labadaba talabaadna waxa weeye Soomaaliland ma laha xabsi carruurta u gaar ah iyo mid dumarka u gaar ah labadaba marka xabsiga Soomaaliland ku yaala gudaha waa 13 xabsi baa la yiraahdaa marka xabsiga Mandheera ay carruurta qayb ka mid ah laga xidhaa xabsigaasna ma aha xabsi ku habboon carruurta lagu hayo marka iyadoo xabsina jirin dhibaatadii lagala cararayay marka hore xabsi ku xayntuna waa dhaqan calid baa la yiraahdaa soo dastuurku qabo laakiin ka duwan tahay marka la eegayo caadi ahaan marka laga ka duwan tahay dhaqan calmaha carruurta wixii hore wax ka badan iyagoo qaba ay runtii ka soo noqdaan arrinta kale ee muhiimka in la fahmo waxa carruurta dambi ma galeen carruurta fal ay galeen oo sharci darro ay ku gafeen oo maanta loo xukumay dama jirto carruurtan way caawdeen waxa la rabnaa waxayna la siiyo cid kale ma caawin madaxtooyada matiin booliis u batay cid kale matiin wasaaradoodii ku shaqada lahayd ee leen ministeriga u ahayd ee arrimaha dhalaanka iyo waxa ku shaqada lahayd bay hortageen tiiba ka hor caawdeen marka waxay cabashada laga jawaabo la dhageysto la yiraahdo cabashadina ama waa sax oo waa la idin qabanaya muddadaas la idin ku qabanaya ama haddii cabashada la yiraahdo waxba kama jiraan dameesha lagu kala tago laakiin sabab loo xiro oo xabsi loo geeyo oo maanta loo xukumo maxkamad loo horkeeno runtii meesha ma jirin Khalid Fodaadi goobjoog Hargeysa